soddon kilomitir markaan soconay baabuurkiina aad iyo aad aan ugu wadnay speed aan caqliga gelin dhagax iyo wax kastana uu ka boodayay ay gaadhay xataa baterigii inuu motoorka gudihiisa ku dhaco oo saa ku socday waanu istaagnay dad baanu soo egnay waxaanu aragnay meeshaanu soo marray xogol roob oo aan yani aad iyo aad u xoog roob oo madowgeeda aad yaabayso ayaa ka da'aysay xikmadda aad iyo aad ilaahay uu nagu taakirayey wuxuu ahaa roobka isna haddii aanu soo soconay gabalkii wuxuu nagu dhacay markaa xadka meel 25 kilomitir jirto halkaa markaanu 25 kilomitir waxba ma ahayn waxaasna dhaqsaa u gudbaysaa laakiin waa jirtay dad aan meesha kula kulannay oo soomaaliyeed oo markii horena afgaran waayey ujeeddada aanu ugu soconno dad kaleeta noo maleeyeyna tuhmay inaanu waa isku ogtoo qabaalkay soomaaliyeed ninkaas wuu isku wada diray oo hubbigii isku wada dhiibay marka qolada qabailka uu ka dhex dhigay waxay noo qaateen inaanu nahay qabiilkaa ay colka yihiin hubka la isugu dhiibay dabata sidii muddo ayaanu doodaynay nimankii aynu isxaqiijinaynay markii arrintaasi noo dhammaatay ayna xaqiiqsadeen inaanu nahay niman u dagaalamaya una dagaalamaya dalkooda afweynana la dagaalamaya way naga garabsadeen arrintii waanaan isula daayay nasiib wanaagsanin markaa waxaanu ugu soo gudubnay meeshaan ugu jeednay waanaanu soo gaarnay annagoo nabad qabnay annaga hurda la'aan iyo gaajo midna maanaan fiilgaraynin oo maanaan garanayn intaanu soo soconay laakiin markii aanu soo gaarnay meesha aanu yani nabadgelyadeedu ku sugnayd waxaan khasab noqotay inaanu sida dhagaxa u wada daadano waddadii iyo wixii nagu soo baxaan gaarigii naftiisii markaasu markii ugu horreysay saaxday oo 4 taayirba ayaa meeshii ku banjaray waxaan ku weydiin lahaa Janaal Cali marna ma ka warhaysan wax gurmado ay kasoo daba diraan qolada faliska afweyn ilaa intaas ay socotay intaan soo soconay waxaa dhacday maalin khamiiseed baanu soo baxay waxaanu ku xisaabtanay in jimcahana uu yahay space jaanis la odhan karo wax baxay ma jiraan laakiin maalintii sabtida ayuu bilaabay marka gurmadka inuu amar soo siiyo meelaha oo dhan uu yidhaaho raadiyo aan ka daba dira ciidan taasna amarkaasna dhammaantii waa la soconay waananu ogaanay nasiib darro laakiin waxaa aad iyo aad u nasiib wanaagsan inuu isaguna qaylinayo ooyay halkaa lahaa ilaa nimankaa hala qabto kuwii uu soo dirayna ay ugu jawaabeen nimankaasi meel soqo ma joogo way tallaabeen waxaanay ku dhow yihiin in halgankoodii hadda ay dhawaan bagaa isagana naxdintaasaa u ah waxaan kaloo ku weydiin lahaa Cali maadaama nin sarkaaloo sare ka ahayd iyo nidaamka aad kana soo aroortay ood ka timi xumaanihii uu sameynayay aad u timina xagga jabhadda maxaa aad ka aragtay markii hore kolley ra'yi gooni aad ka haysatay jabhadda iminkana waa timo waa dhex timi marka sideebaad maxaad ra'yigaagii hore maxaa iska bedelay haddii run ahaan la eego marka ugu horreysa dee aad iyo aad baan ugu farxay inaan ku soo biiray jabhadda aad iyo aadna neeftii igu cabursanayd neeftii hawada xorriyadda way isoo gashay markiiba aad iyo aadna waan ugu farxay waxaanan la kulmay waxyaalo aad iyo aad iyaduna iga farxiyey oo fara badan kuwaasoo ay ka mid ahayn dee markii koowaad ayaan arkay gaarigii ugu horreeyey ee iga horyimay ciidanka jabhadda uu saarnaa waxaynu u qasabtay inaanu joojinno inkastuu ahaa gawaadhidii faqasta laga qabsaday oo noociisa tiam ahaa waanu joojinay si aanu u aragno iyaga iyo gaariga labadooda waxaanu ku dhawaanay raggii aanu meesha kula suganay in ay dhunkadaan gaarigii iyo raggiisaan aan labadooda hadda kaayigana waan dhunkanay kaayigana inuna soo taallaabiy naftiisa waanu ku faraxna waan dhunkanay markaa nimankii waxay yidhahen maxaa noo joojiseen waxaan idin joojinay in aanu idin daawano inaanu idin aragno inaan taariikhda ku qorno markii ugu horreysay inaanu aragno jabhadda ka ka mid ah oo weliba guulo ka keenay aad iyo aadna guulo u keenay watana gaadiidkii uu ummadda soomaaliyeed ugu keenay inuu u adeego laakiin isu rogay inuu ku laayo oo imarka uu saaran yahay ciidan inuu u adeego ummadda soomaaliyeed uu saaran yahay waa si wanaagsan jaaca wax kaloo ku weydiin lahaa
haddii aad imika joogto goobihii dagaalka aad aragtana quwaddii jabhadda aad kana war haysay quwadda wuxuu leeyahay taliska siyaad barre maxaad u malaynaysaa kulley wax ilaahunbaa og wixii iman doonaan laakiin ra'yigaagu maxaad ka qabtaa sidee bay isu keen hortaagi doonaan markay iska hor yimaadaan ciidanka SNM iyo ciidanka afweyne maxaad filaysaa waxaan filayaa way cad tahay ciidanka afweyne dee moral ku dagaalamana ma laha waayo waa nin la yidhi meeshaa gal oo daafa yani xabaddaana fid dilna nin soomaali oo kaleeto xaqiisii iyo dalkiisii ku dagaalamaya marka ciidan aan fahamsanayn qadiyaddiisa aan fahamsanayn wuxuu u dagaalamayo caqligana ku haysta keliya inuu nin kursiga ummadda soomaaliyeed 20 sannadood kaga fadhiyey sabab la-aanna uu uga fadhiyey laynayana isla markii inuu keligii ninkaa kursigiisa u dagaalamayo ninkaas niyadiisa iyo moralkiisa waad garan kartaa adugu marka waxaan qabaa ama aan practical horaba yani arkay baa horena intii aan ka maqnaan layga sheekeynayay ama aan warka ku helayay 5 daqiiqo inaan la sayn meesha goobtii kastee la isugu yimaadaba waayo ciidanna xaq buu ku dararaya ciidanna dulmi iyo dardar ayuu ku dagaalamaya marka inaanu ka guulaysan doono oo sidii hore ay u guulaysan jireen annaguna aanu sii kordhin doono oo xoog ugu guulaysan doono insha allah saasay noqon doontaa su-aal dumaysaan weydiiyo jenaraal cali waxa weeyaan maadaama aad tahay nin madaxahoo dadkuna ay ka dambeeyaan dhallinyarada iyo dadka ummadda soomaaliyeed ee guud ahaanba maxaad fari lahay ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyarada guud ahaan waxaan fari lahaa marka ugu horeysa niyaddoodii adkayd ee ay ku dagaalamayeen inay halkii ka sii halgankanina wuxuu marayaa marxaladdii ugu dambaysay taasoo ah dhowrkii magaalee meesha jiray hadduu ku xarooday awooddiisina noqotay inuu kuwaasun daafac karo inta uga hadhay waa wax dhowr saacadood oo dagaal ayaa inoo hadhay dhowr sannadood inooma hadhay dhowrkaa saacadood ee dagaalka inoo hadhay waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee halkan degan weyn iyo ta soomaaliyeed ee inagu soo birtay iyo ta nagu soo birti karta dambaba waxba ma mudna in laga guulaysto waxay u baahan tahay keliya casiimad iyo adkaysi waxay u baahan tahay keliya fahmid qadiyadda uu u dagaalamo weliba uu qofku aada u sii fahmo oo ay ka baxaan waxyaalahan yaryare ah waa markiiba weerar baan qaaday weerarkii aan qaaday haddii uu yaro dheeraado markaa waa ka nasanaya ama reerkiiba yaro gaadhaya ama geelibaa igaa haraadano aan soo waraabinaya intaynu waxaasoo dhan yaro joojino oo meel dhiganno 3 saacadood oo dagaala oo keliya inoo haday 3 saacadood oo dagaalka ah aynu ku dagaalanno si casiimo waanay dhammaanaysaa insha allah حاجة ضمنية national army iyo hubkii loogu talagalay ummadda soomaaliyeed in lagu daafaco laguna isticmaalay in lagu laayo ummadda soomaaliyeed sawirkaad u taagan arkaysaan waa jenaraal cali xuseen oon jecelahay fursaddan diyaaradda dhacday halkaan aan u taagannahay in yarka idhaahdo waxay xaqiijinaysaa dhibaatada ummadda soomaaliyeed uu geystay ninkaasi iyo caanalayda qofka caanaha keena ummadda soomaaliyeed ka mid hantidii laga qaadayay oo loogu talagalay in lagu daafaco siduu isaguna ugu talagalay inuu ummaddiisii ku laayo ku baabay taasi waa sawir buuxa oo tusaale ka bixinaya nidaamku siduu adeegsaday cashuurtii ummadda soomaaliyeed laga qaadayay in iyada dib loogu celiyo hub lasoo gashado dadna dayaaradaasaa loogu laayo dayaaraddan waxay ku dhacday meel Hargeysa u jirtaa qiyaastii ilaa 18 kilomitir si dalanbaadii loogu dhacday ragga dul taagtaagina waa ragga mujaahidiinta